Titanic waa doontii markabkii la odhan jiray Titanic oo isagii oo maaraysay ama badda ku raagay qoftan dumarka iyo Titanic. Aborta waxay leedahay Titanic waqtigaas oo ahaa oo waqti aad u qurux badan. Haddana waxaa soo baxaya actorka filimka oo la yiraahdo Jack iyo Rose oo ciyaaraya turub. Waxayna dhex keenaysaa maalqabeennadaas oo inaba dee reerkooda iyadana ay maalqabeen yihiin isaguna uu yahay faqiir. Filimku waa filim aad u qurux badan waana filim aad ka heli doontaan waana filim soo jiidashadiisa mudan. Rose wuxuu sawirayaa Jack wuxuu sawirayaa Rose wuuna eegayaa hadeer indho fiican buu ka eegayaa waana filim jacayl ah. Soo dhawaada asxaabta, like, share and subscribe. Filimkan Titanic waa filim aad u qurux badan wuxuuna la metelay 1997 waxaana laga metelay filim iyo taariikh hore oo lamaane isjecel oo kala turjumaya qoys faqiira iyo qoys taajira ay isjeclaadeen. Markabkan quruxda badanna ay soo wada raaci doonaan. Gabadhuna aabaheed iyo reerkooda uu taajir yahay laakiin Jack isagu waa danyar weeye maaha qoyskiisa wax buuran u haysta laakiin wuxuu jecel yahay waa gabadha. Markay soo raacaan habeen joogigu uu qasan yahay oo markabkan waa markabka dunida ugu weyn markaas buu ahaa. Waxaa dhici doona habeennimadii markii ay baxaan ay tagaan iyagoo iska laafiyoonaya dabaashaal waad ogtahay dee muxuu ahaayey dee caddaan meel iskugu yimi waxa ay sameynayaan iyo waxa ay ku jirayaan dee bakhlo iyo muxuu ahaayey khamri cabi iyo dee turub iyo waxyaabaha in la iskaga baashaalo in dee muxuu ahaayey waqti qurux badan la iska qaato in dee hab la isa siiyo in dee la sii dhex galo in dee halka uu ka dhaco dee baashaal iyo wax walba ay ka dhacaan laakiin dee maalqabeennadu waxay ka cadhoonayaan gabadhan odagan taajirka uu dhalay ee keenaysa ninkan faqriga waayo rag oo dhan dee mid walba wuxuu doonayaa inankiisu la doonayaa qoftan quruxda badan inuu uu ku qabsado. waan aragnaa iyagoo muxuu ahaayey qamcaha taagaya si qurux badan markabka saqafkiisa hore si qurux badan iyagoo u taagan isaguna uu dhexda haysto qosol iyo dhoolla caddeynna ay ka muuqato. Qamcaha la is haysto dee jacayl meeshii ugu dambeysay afka la iska dhunkanayaa waa waqti baa lagu jirayaa waa la baashaalayaa. Hadda wuxuu sameynayaa sawir buu ka qaadayaa iyadii oo muxuu ahaayey dee muluqa dee maanta Soomaali iyo qof kale dee ma jirayo qofkiisa dee sawiri kara ama artist ah laakiin isagu waxaas dhan buu isku darsaday waa la iska baashaalayaa. Marba markabku aad buu u weyn yahay iyagu marba meel bay muxuu ahaayey kaga baashaalayaan iyagu marba meel bay kaga jirayaan. waan aragnaa way soo xareysatay shafkay gashatay wayna soo dhaweysatay. Filimkuna wuxuu ku socdaa jawi qurux badan iyo jacayl iyo dee naxariis camal iyagoo shuminaya waqti qurux badan ku jira. Markabkii wuxuu ku dhacayaa dhagax weyn ama baraf la odhan karo oo ku yaala badda gudaheeda waana waqtiga uu muxuu ahaayey jawi walba isbedelayo markabkii la ogaanayo in muxuu ahaayey qayb degtay in uu biyo soo galeen qof walba qaracmayo. Markabkuna marka dambe wuxuu u kala jabayaa laba qaybood u kala jabayaa qayb xaggan aadi qaybna xaggan aadi. Lamaanayaashina cabsi baa soo food saaraysa baaqdin iyo walwal dadkii biyo bay ku daadanayaan jawi qabow baa jira. Qabowguna wuxuu leenayaa dee intooda badan lamaanaha waayo dee qabow lagama bixi karo badda hadday caadi tahay in badan waa dabaalan kartaa laakiin marka uu baraf jiro dee wax walba way isbedelayaanoo intaas adkeyn kartid waa adkeynaysaa laakiin marka dambe dee aakhiro waa jahaysanaysaa. Lamaanihii waxay waqti qurux badan wada qaataan waxay meel walba wada qaataan kuwa badan baa waxay ku leeyihiin hadda dhimashadii ma xaqiiqba ma dhabba miyaan dhibanana maba ogaba dunidan bayn dhimasho iyo nololba loo joogaba waa la isku dhex yaacayaa filimkina halkaas ku joogsimayaa.